بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Dalable Media waxaan idin la wadaagi doonaa xiisad colaadeed oo ka taagan gobolka Awdal ciidamo hubeysan oo halkaasi gaaray iyo sidoo kale ciidanka maamulka Somaliland oo garab siinaya beesha Gadabuursi ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo beesha Ciise ay halkaasi ka wadaan soo dhawaada waxa kale oo aad maqli doontaan howlgal culus oo ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada caalamka ay fuliyeen haddaba howlgalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay ayaan sidoo kale halkan idinkula wadaagi doonaa waxa kale oo aad maqli doontaan Soomaaliya oo hawadeeda ka xanibtay diyaaradaha Israa'iil haddaba sidee ayay ugu suurta gashay dawladda Soomaaliya in hawadeeda ay ka xanibto diyaaradaha Israa'iil halkan ayaan sidoo kale idinkula wadaagi doonaa soo dhawaada haddii aad inagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalka inoo like garay asxaabtaada la wadaag aragtidaadana inoogu soo gudbi qaybta faallada mahadsanidin xiisad dagaal oo culus ayaa haatan waxa ay ka bilaabatay duleedka deegaanka Xariirad ee gobolka Salal dagaalkaas oo ay soo qaadeen maleeshiyaadka beesha Ciise ee ka soo jeeda dalka Itoobiya sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya halkaasi ciidamada madaniga ah ee Gadabuursi oo kaashanaya ciidanka maamulka Somaliland ayaa dagaal culus halkaasi kula galay ciidanka beesha Ciise waxa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aan la xaqiijin karin khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka halkaasi ka socda deegaanka Xariirad ayaa sidoo kale shalay waxa dagaal culus oo ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland iyo ciidanka beesha Gadabuursi oo iskaashanaya iyo sidoo kale maleeshiyaadka beesha Ciise oo ayaguna halkaasi ka waday dhaqdhaqaaqyo ciidan dagaalkan ayaa inta la og yahay waxa uu salka ku hayaa joojintii buugga xeer Ciise oo la rabay in lagu qabto gudaha magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal xaaladda ayaa isbedeshay waxaana wixii ka dambeeyay joojinta buugga xeer Ciise ay noqotay in uu dagaal xooggan dhex maro beelaha Ciise iyo Gadabuursi oo si wadajir ah ugu noolaa gobolka Awdal isla markaana aysan hore u jirin colaado dhex maray beelaha Gadabuursi iyo Ciise ayaa midba midka kale waxa uu fariin u marinayaa baraha bulshada taasoo ka turjumaysa in uu ku baaqayo dagaallo haba ugu dambeysay cuqaashi beesha Gadabuursi oo shalay ku baaqday dagaal ka dhan ah oo ay kala hortegayaan ciidanka beesha Ciise ee doonaya in ay soo weeraraan gobolka Awdal waxaana odayaashaasi warmurtiyeed ay soo saareen ay ku sheegeen in dhulka ay damcayaan ciidanka beesha Ciise uu yahay dhul ay leeyihiin dadka ka soo jeeda beesha Gadabuursi taasina aysan u suurtagelayn beesha Ciise deegaanka Xariirad ayaa ah deegaan muhiim ah waxaana uu ku yaalaa goob buuraley ah waxaana la sheegayaa in weli ay ka socdaan dagaal culus isla markaana dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidanka beesha Gadabuursi iyo sidoo kale maamulka Somaliland ciidamadiisa waxaana ay ciidanka ka soo jeeda beesha Ciise wadaan ayaguna guluf colaadeed oo adag oo ay doonayaan in ay isaga difaacaan weerarka kaga yimid beelaha Gadabuursi iyo sidoo kale ciidanka maamulka Somaliland baraha bulshada ayaa waxa laga dareemayaa dad badan oo iyagu ka shaqeynaya horinta colaadaasi oo dhinaca kale oo fariin u sii gudbinayo ila wareedyo dhanka sirdoonka ah ayaa waxa ay sheegayeen in dawladda Soomaaliya ay damacsan tahay inay qaado tallaabooyin argoosi ah oo ka dhana aqoonsiga Israa'iil ee maamulka Somaliland iyadoo qorshuu yahay in la taageero maleeshiyaad hubeysan oo maxalli ah kuwaasi oo ku nool gudaha gobolka Awdal laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa u sheegay shabakadda Dropside in xukuumadda Soomaaliya ay hiigsanayso inay hubeyso isla markaana ka faa'iideysato tabashooyinka beelaha gobolka Awdal si qalqal amni loo geliyo maamulka Hargeysa warku wuxuu intaa ku darayaa in qorshahan uu jawaab u yahay go'aankii uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku dhawaaqay 26 December 2025 kaasi oo uu si rasmi ah uga aqoonsaday Somaliland inay tahay dal madax bannaan tallaabadaas oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay xadgudub sharci darro ah iyo gardarro qaawan
sida ay xaqiijiyeen xogaha sirdoonka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa inay awood siiso beelaha dega gobolka istiraatiijiga ah ee Awdal oo ku yaala afaafka hore ee Badda Cas kuwaas oo muddo dheer diidanaa gooni ugoosadka maamulka Somaliland. beelaha Awdal waa udubdhexaadka fashilinta qorshaha Israa'iil ee maamulka Somaliland. gobolka Awdal wuxuu dul saaran yahay marinka muhiimka ah ee Baab al-Mandab, ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo diiday in magaciisa la xuso. wuxuu intaas raaciyey waxa keliya ee ay u baahan yihiin waa taageero siyaasadeed iyo in la siiyo qalab militari. xiisadda dhulka ayaa durba u muuqata mid sii kacaysa 21 bishan Janaayo. militariga maamulka Somaliland ayaa shaaciyey in ay dileen 2 nin oo hubaysan oo gobolka Awdal ku noolaa, halka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ay dhowaan ku dhawaaqeen maamul la magac baxay Guban State, kaasi oo si toos ah ula tartamaya awoodda maamulka Hargeysa. Somaliland oo horay u ahayd maxmiyadii Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1991, balse ma aysan helin aqoonsi caalami ah ilaa tallaabada Israa'iil ay soo ifbaxday. falanqeeyaasha arrimaha gobolka ayaa aaminsan in Tel Aviv ay Somaliland u aragto hanti istiraatiiji ah oo ay u adeegsan karto ballaarinta awooddeeda Badda Cas iyo la socodka dhaqdhaqaaqa kooxda Xuutiyiinta ah ee ka dagaalanta dalkaasi Yemen. joogitaanka Israa'iil ee maamulka Somaliland wuxuu si weyn u soo gaabinayaa masaafada juqraafiga ah, ayuu yiri Jethro Norman oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Daraasaadka Caalamiga ah ee Daanishka, isagoo xusay in Israa'iil ay dhulkan u adeegsan karto howlaha sirdoonka iyo saadka ciidamada. qalalaasahan diblomaasiyadeed ayaa kala qaybiyey quwadaha gobolka. dowladda Djibouti oo xiriir qabiil la leh bulshada gobolka Awdal ayaa xiriirka u jartay maamulka Somaliland iyadoo la safatay dowladda dhexe ee Soomaaliya. dhinaca kale, Imaaraadka Carabta ayaa weli ah taageeraha ugu weyn ee Somaliland, arrintaas oo sababtay in dowladda Soomaaliya ay dhowaan dalka ka saarto ciidamo Imaaraati ah. khubarada amniga ayaa ka digaya in xiisaddan ay fursad dahabi ah ay siin karto kooxaha xagjirka ah, inkastoo kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee AS aysan weeraro waaweyn ka geysan maamulka Somaliland tan iyo 2008. haddana dadka indha-indheeya arrimaha gobolka waxay ka cabsi qabaan in joogitaanka militariga Israa'iil uu xagjirayn karo bulshada deegaanka, taasoo gobolka nabdoon u beddeli karta aag colcadeed. Soomaaliya iyo dalalka dariska la waxay ka walwalsan yihiin in xaaladda waqooyiga dalka ay wajihi doonto dhaqdhaqaaqyo militari oo kordha, ayuu yiri Xasan Macalin Saciid Samatar oo ah sargaal hore uga tirsanaa gaashaandhigga Soomaaliya. howlgal culus ayaa ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada caalamka waxa ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal culus oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalkan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka Mubaarag ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsanaa kooxaha nabaddiidka oo ku dhuumalaysanaya halkaasi. intii uu howlgalka socday waxaa lagu dilay 4 dhagar qabe oo ka tirsanaa kooxaha nabaddiidka, sida ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. xubnahan ayaa ku howlanaa inay aasaan miinooyin ay doonayeen in ay waxyeello ugu geystaan shacabka Soomaaliyeed ee adeegsada waddooyinka deegaankaasi. ciidamada qaranka ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay ciribtirka kooxaha nabaddiidka ee khatarta ku ah amniga shacabka iyo isu socodka waddooyinka, si muwaadiniinta Soomaaliyeed u helaan nabad iyo amni la isku halayn karo, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. sidoo kale, wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa mar kale adkeeyey in howlgallada ka dhanka ah kooxaha nabaddiidka ay sii socon doonaan ilaa laga xaqiijinayo amni, xasilooni iyo nabad waarta guud ahaan dalka. howlgalkan ayaa imaanaya xilli ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay maalmahan dambe kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kooxaha nabaddiidka ah, kuwaas oo ka socday gobollada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Jubbooyinka.
guud ahaan saaxiibayaal warbixinteennii inta ayaan kusoo koobaynaa waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad janalka subscribe inoo saarto muuqaalka inoo like garayso asxaabtaada la wadaagto aragtidaadana aad inoogu soo gudbiso qaybta faallada mahadsanidin